بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل أي مقال عصب ولاشين فرحية كسو دوقع مفرن يقلب صافئة بليز هدينا عصب تاي channelka waxaan ka codsanayaa subscribe like share waxigiina wajigaaga caatama yahay wajigaaga mar walba nabro ma ka soo baxaan mar walba ma jeceshahay maska sameyso xulbada haddana ma ka cararta shirka xulbada videogan adiga iska leh marka maska qurux badan aan ku dhahay wajigaada bucbuc si caafimaad insha Allah wajigaada ina ku qurxisid xulbo waxa ka buuxo vitamins collagen fara badan ka buuxo asxaabteeda qurux badan xulbada dumarka faa'iidada ay leedahay hadii ogaan lahaayeen ذهب أكو بدلان لهن مركا إن شاء الله حلبة فايدو فرح بدن أي لا هاي ولا عنا جركا ولا مرصدة وحيابها قرحين توجو بدن لا قسم يا حلبة مركا صحابتي ذا قالي جنشعل هاي وحد أبها أنت يحلبو ما شاء الله تبارك الرحمن لبا قادو أو حلبة مركا حلبة إسكا نذيفية مرولبو إلا إسكا نذيفية في عن وانسو نذيفية كدب بيها الكوب إيو نص أيان استعمالي وان دبولaya ay soo karto asxaabay ila socod wanaagsan asxaabtayda quruxda badan biyaha markay hurud ay ku noqdaan 5 daqiiqo ila 10 daqiiqo kugu filan hurud hadii ku noqotay dabka ka demi kadib waxyaabahan ku dari doono dhammaan insha Allah waan sharxi doona ina ka heli doontana rajayna insha Allah biidinlaahil kariim biyihii markaan soo kariyeen soo qaboojiyay kadib waan soo miray hadda waxaan ku soo darayaa waxa waaye warangada meeshan ku soo cabirtay 2 qaado soo jeedan asxaabtayda quruxda badan ama mid xalwada lagu kariyo ama cornflows oo taqaanid si fiican ay isku dhaxgelinaya asxaabe waxa kale oo isticmaalaya waxa cagaaran waa qasil hal qaado ayaan isticmaalaya insha Allah ila socod wanaagsan qasilka asagana muhiim waaye waxyaabaha ugu wanaagsan oo wajiga weytinsiiyo qurxiyo dhalaaliyo uu ka mid yahay wajigaaga ma jeceshahay waji bucbuc oo qurux badan insha Allah maqaarka haduu duduban yahay ama madow ay leedahay mar walbo nabraha ay ku soo baxaan oo haaraha ay kaga tageen insha Allah saddexdan shay isticmaal kareem dabiici ah gurigaaga ku sameyso mar walba muhiim ay ku tahay videoga bilow ila dhamaad ka fiirso like-ta noo dhahdid hanaga iloobin aad iyo aad uma santiin sida qurux badan mar walba igu xirantiin sidoo kale asxaabta igu xiran oo ka faa'iideysto waxyaabaha dabiici aan soo geliyo feedback yada ugu qurux badan igu soo celisiin thank you by leeyahay jazaakumullahu khayran asxaabtayda dabkii haddaan ku soo celiyay markaan aan isku qasay warangadii iyo qasilkii iyo bihii xulbadii aan soo kariyay kadib waan isku dhaxgelinayaa si fiican waa walaaqayaa dabkana waxa waaye asxaabtayda dab hoose ayaan ku karinayaa ay ka gubanin qaadadan ha ka dhaafin maadaama warangada marka lagu daro waa isqabsanaysaa diyaar uu noo yahay insha Allah wax yar noo hartay waa isku dhaxgelinayaa si fiican asxaabe still waa walaaqayaa waa isku dhaxgelinayaa soo jeedan xoogo isqabsanaya ما شاء الله تبارك الرحمن asxaabtayda soo jeedan ما شاء الله waa isqabsaday waa kareem inaba caadi ahayn waxaan ku dhahay lagama sheekeyn karo dabkan ka daminaya hadeertaan meel iskaga dhigaya ha iisoo qabowdo sidaas qurux badan inagu soo baxday ma sha Allah tabaaraka rahmaan kareem collagen anti aging oo wajigaaga dhalaal shining ku siinayo marka marsadid aan ku dhahay waa iisoo duceyn doontaan biidinlaahil kariim waxa kale oo aan jeclaystay inaan ku darsado waa vitamin C serum optional way laakiin haddaad haysanin waa iska dhaafi kartaa 3 drop amal ayaan ku soo darsanayaa ama vitamin E hadda haysatid waa ku darsan kartaa asxaabtayda waa kasa ma sha Allah isku dhaxgelinayaa si fiican asxaabe wajigaada marka hore waad qoynaysaa alaabtaanayto
maskigaanayto ayaad ku masaajeynaysaa ilaa 10 daqiiqo kadib waa iskaga dhaqaysaa. maalin walba waad isticmaalaysaa, daily ayaad isticmaalaysaa. wuxuu ka qayb qaadanaya wejigaaga inuu kuu qooyo, soft kaaga dhigo, shine qurux badan ku siinayo, collagen fara badan uu leeyahay. saa u jeedaan asxaabteyda si fiican u masaajeynaya. mar walbana marka wejigaaga nadiifisid ama ku qabatid ku joog 30 daqiiqo subaxi marso. waxaan ku dhahay kareemkaanayto caadi ma ahan, lagama sheekeyn karo masigaanayto. wejigaaga markuu kugu qalalo kadib waa iskaga dhaqaysaa. sidoo kale waxaad u baahan tahay skin care ka dhameystiran. hadda waxaan isticmaalayaa cleanserka ayaa si fiican wejiga ku masaajeynaya. marka waa iskaga dhaqaya. markaas ka dhaqo kadib waxaa kale tumarsanaya hadeertaanayto waxaa waaye moisturizer-nayto aan isticmaalaya asxaabteyda. wejiga wuu kuu qoynaya, dhalaal iyo shine qurux badan ku siinayo. asxaabey maskigaanayto wejiga kuu qurxinayo, sidoo kale madmadowga kaa saarayo. maskigaanayto wuxuu kaa saaraya madmadowga, sidoo kale wuxuu ka qayb qaadanayaa inuu midabkaaga ka dhigo mid furan oo dhalaal leh. wuxuu kaa saaraya kheyraadka maqaarka gasho, maqaarkana wuxuu kaaga dhigayaa mid glowing oo qurux badan oo shining leh. maasha Allah tabaaraka raxmaan, wejigaaga mid iftiin leh oo qurux badan ay kaaga dhigaysa. maalinta koowaad aad isticmaalaysid asxaabteyda adiga arki doontid. alaabtaanayto inaba caadi ma ahan, qofkii barto unba mar walbo isticmaali doona insha Allah. wejigaaga haddii aad rabtid inuu soft kuu noqdo oo dhalaalo, mar walbo joogtaya waxyaabaha dabiiciga isticmaal. asxaabteyda haddaad ka hesheen videogan waxaa idinka codsanayaa fadlan ina subscribe iyo like iyo share ha iga hilmaamina. hanaga baqiilin ilaa waqti kale ku kulmi doono hadduu Allah subxaanahu wa tacaala ka raali noqdo. khayr aydin rajeynaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.